الله وبركاته. وايد سلامي gaar ahaan asxaabtay oo maanta caawa halkan timi iyo mataqaana aabahey asxaabtiisa iyo family-ga iyo mataqaana dadkii ehelkii qaraabada horta maanta waa mataqaana waa u jeedin aabahey waa la yara kastamaya aniga aabahay guriga xagga sagan ka degan xuduud baa noo dhaxaysa waa janjartaas laba qaaradood baa kala deganahay soo ogtiin idinkuba laakiin markii aabba ii sheegay dhahay ani damacaas ay galay wuu la socday daaniga xaaladda marxaladda iyo siyaasadda qaybta sidaan anigu mataqaana u arko soo markaas waxaan dhahay adduunka waa la kala siyaasanaad duwanaan karaa waana la istaageeraa mugta soo waxaan dhahay waan ku taageeray markaas insha Allah waxaan u rajeynaynaa inuu mataqaana tii xilka uu mataqaana u kasbaday u dhahay halkaasaan u istaagay in Ilaahay la garab galo insha Allah anaguna waa taageerina hadaan nahay ciyaalkiisa caawada daba qasri u sagaa degan oo jaran jaran oo dhaxayso caankii weynaa jamhuuriyadda u suran anuguna qaybta hoose aan deganahay oo caankii Soomaaliland oo wadan waa يربا أنت كلوا بحذي وهي عرفتي خالد وخرك فدية أو فضلالك يكحرن يعلمك صومالي نوسرية فضلالك أنا كهضلاية يعني هو هوست الجوجو والله الله يقول يا أصحاب تيجي هركيسان وحيد لعب الصومالي محي سكت ما هذا كورجي نابل غدو ردود مركب وحوي الدنيا ده وحنا كبرنا مركب نقربها النمي ديمقراطية وحيد هاي ilmahaygu waxa ay jecel yihiin kuma khasbi karaan kama qaadi karo ra'yi uu bandhigi kara waa oran kara aaba anigu ra'yigaasaan wataa meeshaasaan jeclahay meeshaasaan wax ku darsanaya laakiin khasab igu raaca oo ra'yigayga raaca kuma khasbi karaan sababtoo ah qofku diimada uu leeyahay meeshu soo ka helo ayuu raacaya